Assalaamu calaykum daawadayaal waa mar kale iyo muuqaal kale oo xiiso leh ku soo dhawaada warbixin kooban oo aynu ku eegi doono jimicsiga loo yaqaan yoogada. Yoogada waa maxay yoogadu? Yoogadu waa tababar qaadasho 5,000 oo sano jiray oo ka soo jeeda xadaaradii hore ee Hindiya kuna qotoma falsafad diimeed Hindidii hore lahayd ancient Indian philosophy. waa tababar qaadasho isugu jira mid jireed, mid maskaxeed, mid ruuxeed. yoogadu waxa ay leedahay habab kala duwan oo loo sameeyo sida jimicsiyo, jirdhis, hab neefsashooyin gaar ah, khalaaweyn fikradeed, meditation iyo habab nasasho. ereyga yoga macnihiisu waa midnimo sida culimada diimuhu ay xusaan. falsafada tababar qaadashada waxa ay ku salaysan tahay in yoogadu tahay hab keenaya midnimada jirka qofka, maskaxdiisa iyo ruuxda caalamiga universal spirit oo ay wadaan ilaahooda Brahman. falsafadahaasi waxay leedahay marka uu qofku midnimadaas gaara wuxuu helayaa aqoon iyo xigmad waxaana horumar sameynaya habka fikirkiisa. sidoo kale wuxuu qofku ku xoroobayaa dhammaan waxyaabaha nusqaanta iyo sida tacasubka, anaanimada, selfnesska iyo aragti gaabnida. sida muuqata caadada yoogada markeeda hore in ay diinta iyo ruuxiyadu ay xiriir lahayd baa ka badnayd inta ay ahayd jimicsi jireed. caadadan waxaa dhaxlay Buddhismka oo ahaa markoodii horeba kacdoon diimeed ka dhex dilaacay Hinduismka maantana ah diin ka mid ah diimaha waaweyn ee Hindiya. al-yoga wal tanafus Muhammad Abdul Fattah Fahim. yoogada waqtiga dheer oo ay soo jirtay awgii isbedelo waaweyn ayaa ku soo dhacay qarnigii 19aad dhamaadkiisii ilaa qarnigii 20aad bilowgiisii bay noqotay jimicsiga dunida galbeed caan ka noqday. marka yoogadu ay ka socdaashay koonfurta Asia oo ay galbeed tagtay, isbedelka ugu weyn ee ku dhacay wuxuu ahaa inay ka xiriir furatay falsafad diimeedkii ay ku salaysnayd kuna soo ururtay jimicsi la xiiseeyo waxaa loo furay xarumo lagu sameeyo, waxa la cilmiyeeyay habka loo sameynayo, waxaana cilmi baaris laga sameeyay sameynta caafimaad ee yoogada qaybaheeda kala duwan. caafimaad ahaan waxaa looga digaa dumarka uurka leh iyo dadka u nugul qaybaha jimicsiga adag u baahan. hadday sameeyaan waxaa lagula taliyaa inay la xiriiraan taliyahooda caafimaadka. culimada islaamka qaar baa diiday ciyaarta yoogada iyagoo ka eegaya asal ahaan falsafada ay ka qotonto iyo in ay tahay amal cibaado oo ay leeyihiin Hindisena sanam caabudayaal idolaters aan Allah aqoon. qaarna shuruudo ayay ku xidhaan iyagoo oo yooga bannaan iyo mid aan bannaanayn u kala qaybiya, halka qaar kale ay baneeyaan iyagoo oo u arka jimicsi in ay tahay. mar haddii aysan aaminaad khaldan jirin caafimaadkana aysan wuxu dhimayn waa la samayn karaa ayay qabaan culimadaas. si kasta oo ay culimadu u kala aragti duwan yihiin, tababar qaadashada yoogadu waxay isku raacsan yihiin dhowridda anshaxa suuban ee islaamka meel kasta iyo mar walba. Islam question and answers. waxaan filayaa in aad fikrad ka heshay waxa ay tahay yoogada adiga oo aakhiradaada iyo anshaxaaga diimeed ka fakaraya. ka fakar dhowr arrin. inaan sanam caabudo camalkii la yeesho maxay diintu ka qabtaa? ma jiraan jimicsiyo kale oo aad kaga kaaftoomi karto yoogada? caadooyin iyo falsafad diimeed wadaniya ideology kusal kale maxay diintu ka qabtaa? dhaqamada, caadooyinka, falsafadaha iyo diimuhu dadka adduunyada waxay u kala soocan yihiin taas ogaada. halkaad nagala socotaa waa channelka Hawla Media Production. subscribe saar si aad noola socoto